السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال كسو دوادا وركا تلفزيون كمدحا بنان ee Bulsha TV oo idinka yimaada stuudiyihiisa magaalada Hargeysa warkana waxa caawa diyaar u ah anigoo Saleebaan Ibrahim Xaashiya qodobada ugu waaweyn ee daawadayaal aan warka caawa idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta ka qayb galay qalin jabinta dufcadii shanaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu maanta hortagay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland halkaas oo uu ka jeediyay warbixin ballaaran oo ku saabsan waxqabadka xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku hawlan tahay sidii ay lacagta uga bedeli lahayd gobolka Sanaag oo laga isticmaalo lacagtii hore giimbaarka ahayd ee shilin Soomaaliga ugaaska beelaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa ayaa ku dhawaaqay in shir kale ay qaban doonaan kadib markii kala qaybsanaan baahsani ay soo food saartay madax dhaqameedka beeshaasi oo doonayay in ay shir ay u dhan yihiin ay qabtaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa uu maanta ka qayb galay kulan lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa garsoorka dalka siyaasiyiinta ku midowday madasha wada tashiga iyo toosinta qarankuna waxa ay ku dhawaaqeen in ay qaban doonaan shirweyne qaran oo ay sheegeen in laga tashan doono xaaladda wadanka uu marayo dhinaca wararka goboladana waxa kamid ah gudida dib u dhiska dugsiga agoomaha ee aadan Saleebaan ee magaalada Burco ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada inay ka qayb galaan sidii dib u dhis lagu sameyn lahaa dugsigaasi qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Boorama waxa ay lacag ka gudoomeen mid kamid ah salaadiinta deegaankaasi oo isaga lagu soo hagaajiyay lacag ay soo dirtay jaaliyada dalka Ingiriiska ee ka soo jeeda magaalada Boorama daawadayaal intaasi waa qodobadii warka oo kooban imika haatan u diyaar garooba qodobada warka oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta ka qayb galay qalin jabinta arday ka qalin jabisay jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa taas oo ahayd dufcadii shanaad ee ka qalin jabisa jaamacaddaasi mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ardaydaasi ku bogaadiyay dadaalka ay u soo galeen muddadii ay baranayeen waxbarashada ay ka qalin jabiyeen maanta wariyaha Faysal Fifa ayaa warbixinta warkaasi inoo qaada dhigi doona munaasabadan waxay dibadda sare loo soo gaarsiiyay oo lagu sabootinayay dufcadii shanaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Armas qaybteeda magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay Hotel Mansour ana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Excellent Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada mas'uuliyiinta kala socotay jaamacadaha Armas qaybaheeda kala duwan ee Hargeysa iyo Addis Ababa ardayda qalin jabinaysay maanta oo ku shaqlanaa dharka gaarka ah qalin jabinta waalidiin madax dhaqameed iyo marshaf kale oo aad u tiro badan halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Armas qaybteeda magaalada Hargeysa Professor Ihsaan Umar Ismaaciil oo ka waramay barbilow maraaxilkii dheeraa ee jaamacadda Armas ay soo martay tan iyo laga soo bilaabo xilligii la aasaasay iyo tirada ardayda maanta qalin jabinaysa iyo culumta ay barteen uu sheegay in ardaydani ay dhameysteen kuliyadaha dhaqaalaha ICT-ga diploma study-ga accounting-ka iyo management-ga tiradooduna gaaraysa buu yidhi 411 arday oo isaguna halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee geyga Soomaaliland uu hambaliyay ardaydan tirada badan leh ee maanta ka qalin jabisay jaamacadda Armas
gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray oo shahaadooyin guddoonsiiyey isla markaana uu hambaliyey ardaydan qalin jebisay madaxweynaha qaranka Somaliland Excellent Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaana ka mid ah hadaladiisii sidatan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu maanta hortagay mudanayaasha golaha wakiilada ee Somaliland halkaas oo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa uu ka siiyay waxqabadka xukuumadda iyo waliba waxyaabaha ay ku tallaabsatay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo muddadii 3 sano ee xilka haysay fadhigan oo mudanayaashu sidoo kale ay su'aalo darandooriye ku weydiiyeen wasiir Xirsi waxa nooga qayb galay oo warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xirsi Cilmi kan fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayna garab fadhiyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta waxay warbixin kaga dhageysteen wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan markii uu gudoomiyaha golaha wakiiladu kala fadhigan si rasmi ah u furay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan si rasmi ah u guda galay warbixintiisii maanta uu ka horjeedinayay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Somaliland isagoo warbixintan kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin darajada ciidamada qaranka injaar kordhinta ciidanka qaranka loo sameeyay heerka dhaqaalaha dalka taariikhda howlgallada ciidamada araariyada wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya arrimo kale iyo heerka dhaqaalaha uu dalku marayo waxaana uu yidhi sida oo kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada isagoo ka hadlaya tahriibka dalka ku soo tahriibta dhalinyarada iyo arrimo kale ayaa waxa uu yidhi ugaas Ibrahim Axmed Jilbadhige oo kamid ah madax dhaqameedka beesha galbeedka iyo waqooyiga Hargeysa ayaa ku dhawaaqay mar kale shirweyne ay isugu imanayaan beesha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa degta kadib markii shir hore oo loogu magac daray Hoodaale ay soo wajahday kala qaybsanaan baahsani
ugaas Jilbadhige ayaa sheegay in shirkan uu cilaamiyay uu noqon doono mid ay beeshaasi u dhan tahay isla markaana si wada jir ay uga qayb gali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda beesha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa. warbixinta warkaasna waxa eegaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Fantastic. ugaaska beesha degta waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa ugaas Ibrahim Axmed Kaahin Jilbadhige oo maanta shir jireed ku qabtay hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay madax dhaqameedyada beeshaasi ee ku saabsanaa shirka ay beeshaasi ay qabsanayso isagoona ugaasku hoosta ka xariiqay wax khilaaf ah hadarta u dhaxeeya madax dhaqameedyada iyo waxgaradka beeshaasi aanu jirin isla markaana ay beeshu dhawaan ay qabsan doonto buu yiri shir ay u dhow yihiin isla markaana beeshu ay qabsanayso buu yiri shir ay u dhow yihiin qaybaha kala duwan ee beeshaasi oo dhawaan la xayimi doono ugaas Ibrahim Axmed Kaahin Jilbadhige oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri qasheen waxba kama jiraan wax khilaafa oo jira ma jiro shirkuna uu soconayaa waanu lacayaa waanu dhow yahay hawshii baa la wadaa muddo dhowna anaa ku dhawaaqi doona wax ka xumina ma jiro waana meel qura oo dadku heshiis ku yahay sidaad maqasheen nimanka hadlay maaha guddida laydiin sheegay oo dhan waa niman qaybahoo qaara oo niman qaar uunbaa hadlay mana yahayn inay hadlaane meel bay ka dhaceen waxaanaan leeyahay ka waqsada wixii aan dadka kala qaban shirka Sacad Muuse ninka diidan in mid qura la tago oo mid qura noqdo ninka diidanow dee meel adigu aad ku noolaan doonta mooyi haddaad labadii aanu soconnay ee baabaay doonayso dee mid wanaagsan baa la heloo lagu midaysan yahay ummadda soo raac midaysan adaani kuu taallaa annagu caytamina mayno waxaad tilmaantaan anigoo ugaaskii reerkaa shirkaana hogaamin jiray xoogaa la-ah inanka hadlayow sidaan wuxuu ogahay wuxuu sheegi maayo anuu ma sheegayo shirkuna wuu qabsamayaa waana loo ducaynayaa cidda arrintaa dhexdhexaad ka noqotay ee shirkaa dhalisay ee midnimada soo saartay ee adduunkeedii ku bixisay ciddaan oo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa shirkana waa looga dhex ducayn waxaanaan leeyahay Sacad Muuse ka dibadda joogiyo ka gudaha joogaaba ha ku soo talagalo shirkaa wanaagsan ee midaysan ee dhowaanta dhici doona wiiggaa inagu soo socda maalin ka mid aan dhawaaqi doono had naftiin ninkii nool haddii alla yidhaa ha ku soo talagalo anaana dhawaaqi doono shirkii waa la fasaxay odhan doona sidaa ogaada cidda waxaa wadana dhega ha u dhigina soona duceeya kana soo qayb gala arrin iyo adduunba shirkan jireed uu maanta qabtay ugaaska beesha degta galbeedka iyo waqooyiga magaalada Hargeysa ugaas Ibrahim Axmed Kaahin Jilbadhige ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii shirar kala duwan ay beeshaas ay ku qabsatay dhawaan magaalada Agabar shirarkaas oo dhammaan hadeerto leh cirka lagu laalay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu maanta ka furay Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa kulan lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada ay maxkamadaha dalku ay bulshada u qabtaan iyo waliba sidii loo horumarin lahaa garsoorka dalka sida uu warbixinta ku eegayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Fantastic mar kale Sibinaarkan maanta uu furmay gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada iyo kaaliyaasha maxkamadaha rafacanka iyo kuwa gobolada ayaa maanta si rasmi ah uga furmay Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qaybgalay kulankan lagu lafaguriyay sidii loo garsoorka iyo cadaaladda hagaajin lahaa nidaamka ujuurooyinka maxkamaduhu ay ka qaadaan dadka dacwadooda uga socdaan maxkamadaha gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda Soomaaliland Dr. Yuusuf Ismaaciil Cali iyo gudoomiyaha ururka qareennada Soomaaliland Mr. Fosi kusimaha xiriirlaaliyaha guud ee qaranka
qaranka Somaliland Aadan Axmed Muuse iyo Cabdixakiin Axmed Cabdi oo kamid ah saraakiisha sarsare hay'adda UNDP iyo bahda garsoorka ee Somaliland kaasoo lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha garsoorka iyo cadaaladda xooggan loo saari lahaa dhinaca ujeedooyinka dacwadaha oo horeyna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda Somaliland Dr. Yusuf Ismaaciil Cali iyo gudoomiyaha ururka qaranada Somaliland Mr. Foos iyo kusimaha xirlaaliyaha guud ee qaranka Somaliland Aadan Axmed Muuse iyo Cabdixakiin Maxamed oo isaguna ka socday hay'adda UNDP ayaa dhamaantoodba ka hadlay ahmiyadda ay bulshada u leedahay cadaaladda iyo garsoor xaq ah oo ay helaan markastaba iyagoona tilmaamay in maanta kulankan lagu lafagurayo sidii loo xoojin lahaa ujeedooyinka laga qaadayo dadka kiisaska kala duwan uga socdaan dhammaan maxkamadaha gobolada mas'uuliyiintan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen halkeebuu dhibaato ama ka caqabadaynaya ama maxaa dhib ay hortaagan cadaaladda soo gelideedii ama qadinkii cadaaladda laga soo gelayay koor fiiga ma dhibaato ku yahay ilaa xadkeebaa aad ka warhaysaan inay hawsha garsoorku qabashadeedii adeega looga baahan yahay iyo koor fiigu ay wada jaan qaadayaan ama istaboolayaan dawladdu kale garsoorku waa cadaalad in cadaalad la helo dib weeye taa culayska saaraysaana waxa weeyaan dadku doortay in cadaalad helaan weeyaan idinka taa idin taala in cashuur la helo maaha qofka jilicsan inuu dacwoon karayo weeye qofka aan waxba haysan inuu dacwoon karayo weeye waxa weeyaan qofka xoolaha leh qaniga ana isla inuu cashuurta dawladda bixiyo weeye qof kastaba deetaalkiisa in loo eego weeye tigidkii wala soo saaray araajida taasaan qabaa in ka dakhli badnaan lahaydba inta meesha ku qoranba arki kastoo maxkamadda ama xeer ilaalinta ama xafiisyada dawladda loo soo qortay darajooyinka kala duwan oo la yidhaahdo qof walba codsigu soo qoran inuu tigidh ku soo deji tigidhada qiimihiisa kale leeyihiin kulankan aqoon isweydaarsiga ah ayaa waxaa la filayay inuu soo dhammaado maalinta berri ah daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV dhinaca wararka naga soo gaadhaya gobolada dalkana waxaa kamid ah gudida dibidhiska dugsiga agoomaha ee xaafadda Aadan Saleebaan ee ku taala magaalada Burco ayaa waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay ka qayb galaan sidii dibidhis loogu sameyn lahaa dugsigaas oo ay tilmaameen inuu yahay mid muhiim ah isla markaana baahi weyn loo qabo waxa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wariyahayaga Maxamed Kaabe baaqaad u ballaaran oo dirayaan gudida gacanta ku haysa dhismaha cusub ee loo dhisay agoonta magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer dugsigan oo laga dhisay xaafadda Aadan Saleebaan gudidu waxay baaq u dirayaan dhammaan bulshooyinka reer Somaliland gudaha dibadba meel kasta ay joogaan waxayna gudidu u sheegtay in dhalinyaradu ay ku dayacantay goobaha waxbarashada ee gobolka Togdheer waxayna si naxariis ah uga codsatay dhammaan bulshooyinka reer Somaliland inay ka qayb qaataan dhismaha dugsiga cusub ee loo dhisay agoomaha magaalada Burco ugu horeynta waxaa halkaasi ka hadashay Amal Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha gudidan loo igmaday dhismaha dugsigani kuna dheeraatay in ahmiyadda ay leedahay in wax loo qabto carruurta yaryar ee agoonta ahi waxaana hadaladeedii kamid ah sida tani jarin maaragtay contributionkii ama wixii aad bixinayseen aydan goynina sidii noogu soo wadeen ilaa haddana runtana waxaan jecelahay imika ceelkii baa dhamaaday oo ilaahay khayr siiyo xagga dawladda aad iyo aad bay noola shaqeeyeen gacan qabasho weyn bayna siiyeen wixii nagaga xidhnaa iyaga xaggooda ceelka ay ahaato iyagaa noo qoday filaash baanay noo siiyeen ilaahay ka tusaay mariyo waxaan se aad iyo aad marka ugu sii hamaliyeynayaa wasaaradda macdanta iyo biyaha dhanka kale waxaa ka hadlay maayarkii hore magaalada Burco Maxamed Xuseen Aadan oo ku dheeraaday dhalinyarada yaryar agoonta inay u baahan yihiin waxay bartaan qof kasta oo reer Somaliland ay mas'uuliyad ka saaran ugu qaban lahaa carruurta yaryar agoonta وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدكسيان أقومها دكس أقول من نقولنا ودكس وهوينا وبودينغ ينقولنا وإحنا نقبله لقونا حنانية لقو قوديو ولقو سيحيو ينقولنا dhammaantii waxaa xafladaasi soo afmeeray Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay wax loo qabto carruurtan yaryari sheegayna in if iyo aakhiraba anfacayso qof kasta oo ka qayb qaatay qaranka loo ururinayo dhalinyarada yaryar ee loogu dhisay dugsiga ay wax ka bartaan Cawad Yuusuf iyo Ahmad iyo mawduucaasi waa mawduuca aqoonta hore uga waranay
dowladda dhexe siiba wasaaradda macdanta iyo biyaha markii hore la odhan jiray waa la sheegay ceelkaasay kaga qayb qaadatay laakiin taas waa dowladdii dhexe laakiin arrintii heer gobol oo dee dowladdii hoose ay ka mid tahay iyagana hawshoodii sidaa ama sheegtay waa laga sugayaa si kastaba ha ahaatee xilligan ayaa kusoo beegma xilli loo dhisay agoonta yaryar ee magaalada burco dugsi loogana dhisay xaafadda aadan saleebaan oo ka tirsan gobolkani togdhe isku soo wada duuba maaha markii ugu horreysay guddidan baaq u dirto dhammaanba bulshaweynta reer somalilan waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka madaxa bannaan ee bulsha t v magaaladani burco qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada boorama ayaa waxa ay ka gudoomeen deeq lacageed oo lagu qiyaasay inay dhan tahay 900 oo dollar suldaan ka mid ah salaadiinta boorama oo lagu magacaabo suldaan abshir maxamed ducaale kaas oo ay deeqdaasi u soo gudbiyeen ama ay soo gaarsiiyeen jaalada reer boorama ee ku dhaqan magaalada ama dalka Ingiriiska warbixinta warkaasna waxa magaalada boorama ka soo tabiyay wariyahayaga maxamed xasan ismaaciil qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama uu weheliyo gudoomiyaha gobolka xisbiga xaakimka kulmiye ayaa waxay maanta deeq lacag oo qadarkeedu dhan yahay 900 oo dollar oo ka timid muxsiniin ku nool dalka UK ayaa waxa ay ku wareejiyeen suldaan abshir maxamed ducaale iyadoo ay deeqdan ay ugu talagaleen muxsiniinta ku nool dalka Ingiriiska in wax loogu qabto jidka Turkiga ee isku xidhaya lughayo baki oo muddooyinkii u dambeeyay ahaa mid si xawliya u socda waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta deeqdan wareejinayay iyaga oo tilmaamay mahadinayna marka koowaad waxaan kaloon mahad ballaadh u soo jeedinaynaa qurbajoogtaas soomaaliyeed walaalaheenna ee wax soo taray waddadaas mahaantii waa sadaqa tijaariyo ilaahay agtiisa ay dhiganayaan hawsha ay ka galeen iyo gargaarka ay noo soo fidiyeen si ay u hirgasho himiladayadii dad ku saabsanayd dawga tukri haddaan dib ugu yar noqdo waa magac waa xidhiirka dowladda tukriga iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa meesha qudhahaada ay ku sii hadhay raadkii iyo magacii ku tukrigo oo intaasoo qarni inaga maqnaa halkaa wadda tukri baa leedhaa loo yaqaanaa tukrigii baa baneeyey maanta wadda waqtigan casriga ana waa markii koowaad in hawshaa suldaan abshir iyo dadka deegaanku ay u dhaqaaqaan waxaana ka codsanaynaa ummadda soomaaliya meel kastoo joogto annagoona gobol sheegayn waa jid ka wada dhexeeya ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay suldaan abshir maxamed ducaale isagoo ka mahad celiyey ciddii deeqda soo dirtay wax lagu bixiyo waddaa ugu wanaagsan isku sheegi mayno aad iyo aad baan adeer adigana kuugu ducaynaya horeba waan kuugu ducaynay dadka deegaanka way ku ogiino waan kuu sheegay waxaad haysa ilaahay ha kuu barakeeyo gaalka aad la joogtaanna ilaahay ha inii sakhiro aad iyo aad baan dhammaantiin inigu mahadnaqayaa iniguna ducaynayaa waxaanan inigu bishaaraynayaa waddadaasi si degdega inay u dhammaan doonto markaan imiga ku xisaab qaato rag waaweyn oo ila soo hadlay oo maaragtaa inay waddadaa ila dhammeeyaan oy nagala hawlgalaan ballan qaaday waa maxamed xasan ismaaciil sherbiyare bulsha t v magaalada boorama daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka madaxa bannaan ee bulsha t v oo halkan caawidi ka soo jeedinayay anigoo Saleebaan Ibrahim Xaashiya intaan wararkan iyo warar kale ku kulmi doono dhammaanba aniga iyo wariyaashii iyo farsamayaqaanadii kala qayb galay tabinta warkanba waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh